Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Kusodo the Grand Online Academy. My name is Teacher Muhammad Ali, and today I have a very interesting lesson for you. So let's get started. maanta بإذن الله سبحانه وتعالى casharkeena wuxuu ku saabsan yahay interrogative words ama waxa loo yaqaanaa question words. waxaan arkaynaa macnahooda iyo qaabkii loo isticmaalay. ugu horeyn magacii waxaad ka dareemtaba inay yihiin kelmadaha loo isticmaalo su'aalaha. waliba gaar ahaan su'aalaha laba nooc ayuun bay leeyihiin. su'aalaha laba nooc bay u qaybsamaan. waxaa loo yaqaanaa yes iyo no questions iyo open end questions. marka casharkii maanta wuxuu ku saabsan doonaa ama waxaan faahfaahin doonaa qaabka loo isticmaalayo kelmadaha ee ku saabsan su'aalaha open end questions. ugu horeyn open end questions waa su'aasha jawaabtiisa aanan noqonanin yes ama no. For example, su'aalaha yes ama no waxay noqonaysaa did you go to school? Yes I did ama no I didn't. su'aasha ama jawaabteeda waxaa kugu filan baa inaad tiraahdo yes ama no. tan waxaa loo yaqaanaa yes or no questions. maanta laakiin casharkeena wuxuu ku saabsan doonaa open end questions iyo qaabka la isticmaalayo question words. marka waxaa jira marka laga hadlayo question words lix mid baa jira ama lix kelmadood oo kuwii badanka la isticmaalayo ayuun baa maanta insha Allah casharkan ku sharaxi doona. marka saan sharaxnay question wordska ama afwan su'aalaha open end questions waa su'aalaha jawaabahooda aan noqonayn yes ama no. marka jawaab faahfaahan ayuun bay noqonaysaa. kelmada koobaad oo ka mid tahay question words haddaan ku bilaawno waxay noqonaysaa what. Okay? word number one, for example, what. For example, aan tusaale ku siiyo haddaan yiraahdo what are you doing? maxaad qabanaysaa? What are you doing? Okay? Word number two waxay noqonaysaa for example how. Okay? How are you doing? How's life? How are you? saddexdan waxay jawaabahooda noqon kartaa for example I'm doing good, I'm doing just fine, I am great. marka tan waxaa loo isticmaala qofka xaalkiisa marka aad weydiinayso xaalada ka hor. Okay? Next one will be when. When waxaa loo isticmaalaa time-ka marka laga hadlayo. Okay? When are you going to come? xillimaad imaanaysaa. jawaabtu waxay noqonaysaa I will come at for example 10 o'clock. 10 o'clock. Okay? su'aasha kale waxay noqonaysaa ama kelmada kale waxay noqonaysaa for example where. Where waxaa loo isticmaalaa meesha. Okay? meesha baa loo isticmaalaa ama marka tilmaam tusaale oo kale ee qofka aad tilmaamaysid wax. Okay? For example tusaale aan ku sii haddaan yiraahdo where are we going to meet? xageen isku imaanna. Okay? Where are we going to go? xagee aan tagayna ama qof aad weydiin kartaa meel rabtid inaad lagu tilmaamo. For example you can say where is the national supermarket? qofkanaas wuxuu ku tilmaamay wuxuu ku oranayaa it is right there. Okay? Next word will be why. Why-na waxaa loo isticmaalaa sababta. Okay? For example qof baad isbalansaneen inuu ku yimaado 8 o'clock. qofkaas saacadiin baad eegtay waa 8 barka. qofkaasna wuu habsaamay. You call him and you say why are you late? maxaad u habsaamtay? Okay? saasoo kale marka why waxaa loo isticmaalaa sababta. For example qof buu ku yiri dibada baan u baxaya. xawalanaysaa why are you going out? maxay sababta tahay u baxaysa? qofkaas for example we will say I am going to buy something. wax baan tagayaa soo iibsanaya. Okay? The last word will be who. Number 6 of the words will be who. Who-na waxaa loo isticmaalaa qofka. Who are you? qofka maad weydiinaysaa qofkee baa tahay. Okay? Who is this guy? qofkan ama ninkan waa kee? Okay? Who is he? marka qofkii waad weydiinaysaa ma who waxaa loo isticmaalaa qofkii ayuun baa loo isticmaalaa marka ee tusaale oo kale qofkan aad weydiinaysid qofkee baa tahay ama talking about another person. So basically casharka maanta saas buu ahaa wuxuu ka mid yahay casharada u muhiimsan luqada Englishka. waa muhiim inaad taqaanid qaabkaad u isticmaalaysid open end questionka loo isticmaalo question wordska ee lixdii kelmadood aan maanta ku baray. aad iyo aad baad u mahadsan tahay for your time and for your listening. Please contact us on the numbers that you see on the screen below. We start new classes every week inshallah subhanahu wa ta'ala for English and for other courses. Thank you very much for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.